baahida loo qabo hal abuur bulshadeed. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa nin habeenkii codkaaga yaqaana maalintiina raadkaaga yaqaana lalama coloobo. Maahmaahdani waa maahmaah mug weyn oo ay awoowayaasha Soomaaliyeed ay inoo dhaafeen si ay nooga digaan cawaaqib xumada ay leedahay marka dad isu dhow oo isu dhaqan ah oo dhiig ay deegaan wadaagaba ay culoobaan ama dagaal u dhex maro. Dadka isu dhow markay dagaalamaan waxay abuurtaa boog colaadeed oo mar walba si sahlan loo xogxogi karo. Colaadda noocan oo kale qofku guuleysanayo haba yaraatee ma jiro oo mar walba barbardhac ay ku dhamaanaysaa. xitaa hadduu qofku guuleysto guusha waxaa ka daran boogta colaadeed ee laga dhaxlayo colaadda. waxaa laga dhaxlaa caruur inta aabbahood ku waayay agoontoobay, hooyo ilinta ka dhammaatay markay ninkeeda iyo curudkeeda ku weyday, basaastii asaydana timaheeda ku xargoobeen, walaal iyo ina adeerkii mid ku waayay markaasna garab banaanaaday, kii inta ka qayb galay oo aan ku dhiman oo ay rasaastii lixdiisa lixaad halakeeyeen ama curyaamiyeen. intaasoo dhan waxaa laga helaa colaadda. sidiisaba bulsho dhismeedka waxaa lagu sifeeyaa sida jirka aadanaha oo kale. jirka aadanaha kolkuu khatar ama walwal iyo walbahaar soo food saaro waxaa istaaga difaaca jirka ama ay u yaqaaniin immune systemka. jirka oo dhan wuxuu ku mashquulayaa khatartaa ama walwalkaa soo food saaray. dhibaatada ugu weyn waxay tahay khatartaa hadday sii qoto dheeraato jirka aadanaha iskama difaaci karo cudurrada waaweyn. sidoo kalena colaadda bulshada ka dhaxeeya hadday sii qoto dheeraato dalka iskama difaaci karo cudurrada halista ah ee siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba, taasoo haddii aan laga hortegin u horseedaysa dabargo bulshadeed. khubarada reer galbeedka ee ku takhasuso arrimaha bulshada ayaa mahmaahda ninka habeenkii codkaaga yaqaano maalintiina raadkaaga yaqaano lalama coloobo u yaqaano hal ku dhagi ahaa narcissism of small differences, ayagoo ula jeedo kooxaha colaadu ka dhaxayso hadday dhaqan ahaan iyo dhiigba ahaanba ay isu dhow yihiin, aragtida yaryar ee ay ku kala duwan yihiin ayay aad u buunbuuniyaan. xitaa hadday jiraan meelo badan ay isu aragti yihiin, inta yar ay ku kala duwan yihiin ayaa ka dhigaysa colaaddii colaad aad u baaxad weyn maadaama ay ayaga buunbuuniyeen, taasoo u horseedaysa caro aan laga soo noqon, colaad aan laga heshiin, cudur aan laga boogsan, cilmi aan lagu intifaacin iyo ceer aan laga dhaqan. sida kaliya looga bixi karaana waa in la helaa hal abuur bulshadeed tiiraanyo bixiyaa oo boogta colaadeedna la dhayaa, lana la wada tuso in meelo badan oo ay dadka colaadii ka dhaxayso ay isku aragti ka yihiin oo ay isku waafaqsan yihiin. ayaan darada dhacday maanta ayaa ah odayaashii ku fiicnaa nabadeynta ayaa yaraaday iyo hubkiioo aad u batay gacantana u galay dad aad u fara badan. qoraa cabduqaadir oromo ayaa arrinkan asoo cabiraya yiri ugaaskii waxaa bedelay afar jeeble, bulshada waxaa laga waayay waa yeel taliya iyo wadaad wax sheega. odayaasha maanta jooga badankoodii waxay u badan yihiin kuwa markay dhalinta yaraayeen ahaayeen maleeshiya beeleed oo aan aqoon durugsan u lahayn nabadeynta. waxaa dhici karta inay ku fiican yihiin dhanka diyeynta ama diyo bixinta. sidaas darteed waa inaan dib u soo nooleynaa nidaamkii fiicnaa ee lagu xullan jiray oday dhaqameedyada ama nabaddoonnada, suugaanleyda iyo culummada kuwoodii fiicanba. waa in lagu eegaa hadday leeyihiin dabeecadaha mahmaahdii caanka ahayd ee oranaysay ergo waxaa loo dirsadaa nin dhurwaacay uga adag, kudkuda gaajo uga adag, kurtan qorax uga adag, dhagax qabow uga adag. dabeecadahan ergeynta ee mahmaahdan ku xusan waa kuwa khubarada reer galbeedka ay yiraahdaan qofka diblomaasiga sare waa inuu dabeecadahan lahaadaa. sidoo kalena odayaasheenii hore dabeecadahan ayay lahaan jireen, taas ayaa suuragelin jirta in mar walba oo colaadi dhacdo isla markii la nabadeeyo ama la damiyo. si kastaba ha ahaatee qof walboo Soomaali ah wuxuu rabaa isbeddel khayr wata oo dhibka jira looga baxo. sida kaliya oo isbeddelkaa ku imaan karana waa inaan nafsadayada dhanka xun u janjeertay beddelnaa u najihaynaa dhanka toosan.
sunnada alle ayaa sidaa ah. qofka hadduu isbeddel fiican la yimaado reerkiisa ayaa isbeddela, reerkana hadduu isbeddel fiican uu ku yimaado bulshadoo dhan ayaa isbeddela, oo bulshadana hadday isbeddesho qarankiioo dhan ayaa waxaa noqda qaran qurux badan oo fiican. nafsadana waxaa keliya lagu bedeli karaa markaad aqoon u leedahay nafsadaadii. waatuu nabigeeni allahuma salli wasalam caleyh yiri, qofkii nafsadiisa ogaada allana wuu ogaanayaa. nafsadaadii ogow waxay gasho iyo waxay guddo. tusaale qurux badan ee ogaansha nafeedka ah waxaa ka bixiyey gabayaagii caanka ahaa axmed ismaaciil diiriye oo qaasim loo yaqiinay, oo gabaygiisa ugu magac daray macaan iyo qaraar. tix ka mid ah gabaygiisa ee uu ku aqoonsanaya nafsadiisa ayaa wuxuu ku yiri, dacartuba marbay malab dhashaa ood muudsataa dhabaqe, waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaale. midigtayda iyo bidixdu waa laba mataanoode, midig waa martida soorta oo maata daadihise, midina waa midiyo xiirar iyo mur iyo deebaaqe. mar baan ahay mudeex camal san oon maagista aqoone, marna macangag layaan ahoo miigan baan ahaye. mar baan ahay muftiga saahidnimo maclow gale e, marna waa maqaawi waasho xumaha miista baan ahaye. muuqayga gelinkiiba waa muunad gooniyahe, miisaanna ima saari karo nin ima leeyaaye. gunaanadku waa nafsadda aadanaha macaan iyo qaraarba way leedahay. nafsadaadii dhanka fiican ee macaan u jihey. soomaalaaye muddo dheer ayaan qaraar ahayn, bal maanta aan niyaysano inaan macaan isu beddelno si aan u soo saarno qaran qurux badan oo macaan badan. waa walaalkiin Baazi Busuri iyo barnaamijkii Horumari Ummadaada.